wasiirka amniga qaranka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Ejniiriso iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa boqday xarunta booliiska ee 991 kaas oo ay bulshada Soomaaliyeed kala soo xiriiraan hay'adaha amniga si ay ugu soo hagaajiyaan fariimaha amniga quseeya iyadoo mas'uuliyiinta ay warbixino amniga ku saabsan ka dhageysteen saraakiisha amniga. dhanka kale wasiirka amniga iyo duqa magaalada Muqdisho ayaa kormeeray baraha kontarool ay ciidamada amniga ku leeyihiin isgoosiyada magaalada Muqdisho halkaas oo ay kula kulmeen ciidamada amniga ee heeganka ugu jira difaaca qaranka, badbaadinta shacabka iyo la dagaalanka nabadiidka. ujeedka kormeerkani ayaa ahaa mid ay mas'uuliyiinta ugu kurgalayeen sida ay u socdaan howlgallada amniga lagu sugayo iyo tiro-koob lagu sameeyay tirada ciidamada ku sugan jagboontiyada magaalada Muqdisho kuwaasi oo la kordhiyay. waxaana wasiirka amniga iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ku dhiirigelinayeen ciidamada ay la kulmeen in ay dardargeliyaan sugidda amniga caasimadda iyadoo loo turayo shacabka. inta kormeerkani socday ayaa duqa magaalada Muqdisho mudane Ejniiriso waxa uu isgooska Tarbuunka ee degmada Hodan kula kulmay dhalinyaro meel isugu yimid isagoo ka dhageystay talooyinkooda ku aadan horumarinta amniga iyo bilicda caasimadda. waxa uu gudoomiyaha kula dardaarmay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay kaalin muuqata ka qaataan la shaqeynta hay'adaha amniga si looga guuleysto dagaalka lagula jiro kooxaha argixisada ee ka soo horjeeda nabadda iyo nolosha ummadda Soomaaliyeed. kormeerka markuu uu soo ilaaday ayaa waxa warbaahinta qaranka la hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Ejniiriso. waxaan kormeer ku tagnay xarunta taleefanka 991 oo runtii ciidankii joogay booliiska oo har iyo habeen shaqeynayay ee noo sheegeen sida shacabku ay diyaar ku yihiin warbixino badan ay soo gudbiyeenna in talaabo lagu qaaday dad badan oo nabadiid ahana lagu soo qabtay. waxaa mahad ilaahi ah in shacabkii maanta ay farta ku fiiqayaan qofkii dhibayay caasimadan iyo magaaladan. ujeedada kormeerka wasiirka muxuu ahaa aan u wada soconno iyo taliyahana waxay tahay inaan u kuurgalno xaaladda iyo ciidanka oo hari habeen booliiska magaaladan joogana inaan dhiirigelinno isla markaana u sheegno inay yihiin geesiyaal ummadana ay iyagii ku muxuu ahaa nasanayaan. annaga waxay tahay waxaan naga go'an waxay tahay shacabka oo loo naxo, shacabka oo loo adeego, shacabka oo la badbaadiyo. intaas ayaa iyadoo habeen ramadaana aan kormeerkan u sameynaa caasimadana. waxaan aad ugu faraxsanahay in shacabka iyo hay'adaha amnigaba iyo maamulka gobolkaba iyo wasaaradda amnigaba runtii dadaaladii ay sameeyeen inay noqdeen kuwo miro dhala. haddana aan rajaynayno inta dhimana lasii dhudhuujiyo. ramadaan khayr qaba ayaan u rajaynaynaa shacabka. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.